أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله ربي لا أشرك به شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أمام مليون وإذن سلام يا ما شاء الله تبارك الله. قرقي كسون نقضي وقت دير كم قناة بان كم قناة قرقي هالبل. الحمد لله إلهي ويسون نبذ عليه براران كتشرا برواقان كتشرا إركا إيشرا عبار سلكي هدا داوتان سبسكرايب كي ثم كي شير كي سارة runtii baa timid naag walbo isgada alla run sheegu fiicana. runta haddaa sheegtid wax ka wanaagsan lama arko weligaa iyo allaha ciishood oy dhibaato kasta ha kugu dhacdo. runta haddaa sheegtid dhibaato kasta ha kugu dhacdo, laakiin waxa weeyaan calooshu way ku adkaanaysaa. laakiin markaa been naftaadana ka gadid dadkana u sheegtid weligaa horumar gaari maysa. anigu gurigaas yarkaa waa villa MMS kuma dhisin farxad, kuma dhisin qosol, kuma dhisin faan, kuma dhisin. anigu waxaan ku dhisay oohin, waxaan ku dhisay run, waxaan ku dhisay ciil. maanta wax iga bacay iyo wax iga maqan midna ma jiraan. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. subaxan soo tooso waa subax kasta waagiisu leeyahay. wadanku waa abaar, meeshii barwaaqad ahaan jirtay hadda ma jirto. ilaahay roob khayr qaba noo keeno. meesha markaa anigu oohintiidii baan ku jiraa, laakiin sariirta kama ooyo. banaankaan ka ooyaa, sariirtaan ka ooyaa, waa ka ciishoodaa, dhibaatadaydaan ka hadlaa, tan gurigayga, ta ilmahayga, ta naftayda, ta ehelkayga, intaba waa ka hadlaa. laakiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin kama hadlo inaan anigu dadkana qosol tuso aniguna aan ooyo ma sameeyo. laakiin waxaan sameeyaa inaan qoslo, inaan ooyo, inaan farxo. human nature wixii ahoo dhan inaan sameeyo ayaan sameeyaa keliya. marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin taasaan meel ku gaaray. gurigaa yarkaa baan iska dhistay, halkaasaan iska deganahay. maraykan waa ka soo kacay, laakiin cid oma nooli. markaan magaxaafadan soo degayay meeshaan maanta bannaan beer bay ahaan jirtay. fidiyadeeda hore waxaa laga yaabaa inaad aragtaan. khudaartay gadi jireen, wax walba iibin jireen. beer weyn bay ahaydoo wax walba ka baxaan bay ahaan jirtay. beertii waa la cuna. markii hore maroodi baa galay, markii dambana waaba iska baaba'dayba. wax damba kuma ay beerinba because korontona ma haystaan, maroodiguna waa iska soo galaya. marka adduunka wax arkaysaaba markaan beertaa fiiriyaa waxaan dhahaa adduunka dhan baaba iska imtixaan ah. marbay beertaas xaafadaanan ugu qurux badnayd oo wax ka bixi jiray geedo beenbeena kama bixi jirin, geedo la cunaa ka bixi jiray. marka sidaa aawadeed baan anigu gurigaygaas maanta hita maasha allah halkaas ka dhisan xabad geeda ma lahayn. markay beertaanu buuxday hal xabo oo geed ah gurigaygaas ma lahayn. marka alxamdulilah maanta gurigaygii baa wada geed ah. beertiina waxay noqotay eber oo maroodi baa baabi'iyey. marka nolosha runta ahi waxa weeye, nolosha runta ahi waa midaan oo kale. nolosha runta ah waa midaan. waa u samray, ciilkaan ugu dulqaatay, dhibaatadaydaan u adkaystay, caruurtayda waxa ku dhacayaan u adkaystay, naftayda waxa ku dhacayaan u adkaystay. markaan ooyaayo waa ooyaa, waa sheegaa. laakiin alxamdulilah anoo geedahaas iyo dhirtaa haysta baan waxaan sameeyaa marmar inaana guriga ka soo bixinin. channelkayga haddaad daawataan subscribe-kii thumbkii sheerka ii saara. sababtaana guriga uga soo bixin waxaa weeye mar baana videoba soo duubin oona youtube-kayga waxba soo gelino, snapchat baalkii tiktok-kayga waxba soo gelino, aanan meelna waxba soo dhiginin. laakiin waxaan ahay one face baan ahaa. marka naagihii shalay aniga igu caynayay dhibka, naagihii shalay aniga idulmaayay
naagihii shalay faanayoo lahaa meeshaan ku qoystay baan ku qalalsaday baa maanta oynaya dhibaataan ku jiray israa'iis baan ku jiray nin baa gumaysanayay 2026 USA ah ku nooshahay baa ku gumaysanaya intaasoo sanana Yurub aa soo joogtay so waa beenta la iska gado adduunka ilaahay war YouTube-kayga subscribe-kii sababkii sharka isaar adduunka ilaahay xoolo waa la helaa allow maxaa la igu soo dira aqli ay leedahay igulama diriri jirin midgaantii ina yolo aqli ay leedahay igulama diriri jirin laakiin aqli dad kale bay igula diriri jirtay laakiin aniga gurigayga day 1 from today wixii ka jiray anaaba sheegi jirayba laakiin ayada laba waji saanaan u ekaa kanaan ahaa waa cishooday waan ba'ay waa hoogay dadka markaa caayaysid adiga inaad dhibaatadaas ku jirtid maxaa dadka ugu nixi weyday oo oran weyday adba dhibaatadaas ku jirtay qof dhibaato soo martay ha ku digan maanta alqiira jabaan lagu sheegaya wax ku naxaya ma jiraan xooluhuna naxdin ma noqdaan xoolaha lagu siiyay naxdin ma noqdaan xooluhu waxay noqdaan waa lagu baranayaa waa lagu siinayaa birina waa lagu wacayaa YouTube-yada lagu galiyay meel walba lagu saaray laakiin maxaa aragtay maanta faaktiga ceebtaadii anagu waa haraataydi lagu qubaystay oo cagaha lagu dhaqday oo wajiga lagu dhaqday oo meel walba la saaray laakiin aniga nin ima abiyuusaynin ana dhibaatadii aan qabay hurgufayay hurguf tuuladaasaan ka degay gaaladaas yarta ah baan ka degay adigana maantaad waxaad ka ooyeysaa aqalkii lagu qaystay baan ku qalalsaday niman ima soo furin annagaana la soo furo 15 nin soo guursatayo nool oo qurux badan oo xaragoonayno wax diidi karno wax yeeli karno oo nasab ahoo ma aragtay irku noo jira cabaar duniya halkaan ka salaamay duniya waa gabar aad u aqli badan dadkana kuma xad gudubto waana gabar wastareen noqotay oo aqligeedu ku filan yahay weeyaan qof saacadan iska boodboodaysa may ahan laakiin maanta ayadiyo duniyo haddii miisaan la ii saaro midna waxaan ka dhigi lahaa 1 pound midna waxaan ka dhigi lahaa 2 milyan oo pound why because duniya waa gabar quality leh gabar dadka ka xishoota gabar ummadda respect garaysa laakiin ina yolo dadku waxay u qabaan midgaanimadu inay qabiil tahay midgaanimadu waa xumaanta weeye qofka xun baa midgaan qofka xun baa midgaan marka ina yolo waa midgaan laakiin duniyo waa ma dhibaan marka dadka horta taa ha ogaado qofka wanaagsan waxa weeyaan waa qof wanaagsan qof reer hebel ku sheeganayo baa midgaan aniga hadaan xumahay midgaan baa noqonaya why because wixii xun baa midgaan maamulkiin gurigaas ay degan tahay meel walba flowerkaas la igu abuuray geedkan waa geedkii la igu kufsaday uu baxaya geed har weyn oo umadu harsato oo halkan biyo u dhigo dadka oo dadku intay harsadaan biyo ka cabaan baan la maaganahay inaan ka dhigo oo aan biyo ka soo laalaadiyo biyahaas la shubo ama u sameeyo meel dheer biyo ka cabaan dadka biyo cabaan jidkan ka cabaan baan ka dhigi doonaa insha Allah oo aan tuubada biyaha ku soo shubo marka waa idin salaama wana kuwin MMS irka ii jira cabaar villa MMS waatana wax allaale wixii soo gaaray iyo wax allaale waxaan ku jiro iyo wax allaale wax igu dhici doona midna fan iyo been igu arki maysaan runba igu iimaanaysaan itus oo itaabsi waana idin salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh